السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran channelkayga marka la soo dhawaado aad iyo aad u mahadsantiin waa idinka mahadcelinayaa daawashada meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo aad ii daawanaysaan waa Arbaco 22 bisha 12 sanadka 2021 maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan aan talo iyo digniin aan ugu jeediyo waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurta teenagerska gaar ahaan kuwa high schoolka ama dugsiga sare dhigta gudaha wadankan Mareykanka ku haysta maxaa sababay arrintan xilligan in aan ku soo beego ayaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan wadanka sidaad ogtihiin labadii sano ee u dambeysay 2020 dhamaaday iyo 2020 hadda maalmo yar ay ka harsan yihiin cudurka coronavirus-ka ayaa wadankan ku habsaday carruurtii inta badan iskuulka ma aysan aadayn walow hadda intii dambe ee sanadkan 2021 ay iskuulka maalmo aadayeen maalmana guriga ay wax ku barayeen laakiin sanadkii hore 2020 inta badan guriga ayaa carruurta wax lagu barayay arrintaasi baaritaan la sameeyay waxaa la ogaaday in maskaxiyan carruurta ay saameyn ku yeelatay arrintaasi sababo badan awgeed waayo carruurta waxay jeclaayeen in iskuulka tagaan saaxiibadood arkaan la ciyaaraan macalinka hor istaagaan laakiin hadda computer ay hor fadhiyaan halkaasi ay cashiradoodii ka qaadanayeen marka kalena mobile haddii ay haystaan ayay ku mashquulayeen arrintaasi maskaxda carruurta ayay saameyn ku yeelatay carruur fara badan ayaa isdishay kuwana waxa ay ku sigteen inay isdilaan inagu dad muslimiin ayaan nahay arrintaas inta badan nagama suuroodo in ilmuhu ay isdilaan walow carruurta wadanka ku dhashay laga yaabaa qaarkood in ay arrintaasi ka suurowdo haddaba waxa kale oo jira waxay tahay wadankan gaar ahaan iskuulada waxa ku soo batay in ilmo yar qori intuu soo qaato toogasho sameeyo uu dad dilo ama carruurtii ama macallimiinta ama shaqaalaha iskuulkaasi ka shaqeynaya uu dilo arrintaastii ugu dambeysay dhamaadkii bishii hore waxay ka dhacday gobolka Michigan gaar ahaan iskuul la yiraahdo Oxford wiil yar oo 15 jir ah ayaa bastoolad aabihii soo gatay soo qaatay ka bacdina waxa uu dilay 4 arday ilaa ku dhawaad 7 kalena waa uu dhaawacay isagii hadda waa xiran yahay Ethan oo 15 jir ah aabihii hooyadii oo James iyo Jennifer la kala yiraahdana waa ay xiran yihiin waalidiinta $500,000 ayaa damaanad lagu soo deyn karaa ayaa la yiri saddexdoodaba saddex qol ay ku kala jiraan waxaana laga ilaalinayaa sidoo kale waalidiintu inay istilaan iyo waliba wiilka yar waalidiinta waxa la soo qabtay iyagoo raba inay isla markaana waxa lagu soo eedeeyay in ay 4 dambi oo dil aan ula kac ahayn maadaama la yiraahdo wiilkan qoriga meel furan ayay galiyeen bastoolada oo ay ka ilaalin kareen inuu soo qaato isla markaana wiilkan calaamada ayaa lagu arkay maalin ka hor iyo maalintii dilkaasi uu geysanayay waalidiinta waa loo yeeray boorsidiisana ma aysan baarin wayna wadi kareen oo guriga waa ay geey kareen wayna ogaayeen qorigan inuu haysto walow hadda qareenkooda uu ku dacwoonayo waalidiintu qoriga meel xiran ayay galiyeen mana ka warqabin wiilkan inuu soo qaatay laakiin waa markii u horeysay taariikhda wadankan Mareykanka waalid dil oo ilmahooda geystay iyaga loo soo xiro arrintaas marka saameynta ay yeelanayso ayaa rabaa in waalidiinta Soomaaliyeed aan uga digo isla markaana aan u sheego waa ay jireen waalidiin probation iyo wax saas lagu xukumo laakiin in xabsi la galiyo dambi lagu soo ogo maxkamad la soo taago wali ma aysan dhicin haddaba waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurta da'da yar ee teenagerska ay dugsiga sare ay u dhigtaan digniintan iyo waanadan ayaan rabaa inaan u jeediyo 3 toddobaad ka hor magaalada Florence ee gobolka Kentucky arrin ka dhacday oo Soomaali qosaysa ayaan rabaa inaan idin sheego gabar yar oo Soomaali ah oo 14 jir ah iskuul ka dhigata magaalada Florence ee gobolka Kentucky iyo mareera 2 saacadood ay jirtaa ayaa macallimiintii waxay arkeen waraaq ay qortay waraaqdaasi waxyaabo kala duwan halkan ayaa idin soo saaraya gabadha hooyada ayaa la xiriiray oo ii soo dirtay gabadha hooyada wareysi waa ay ka gaabsatay laakiin Soomaali ahaan waa loo baahan yahay in hooyadaasi la caawiyo maadaama arrinta maxkamadda ay gaartay qareen ay qabsatay gabadhu marka waraaqdan ay qortay waraaqda qoraalkeeda fartu aad ay u yartay waxa laga yaabaa inaan akhri karin laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ku qortay ayaan rabaa inaan idin dul maro waxyaabaha ugu muhiimsan oo gabadhu waraaqda ay ku qortay gabadha sida muuqata stress ama walwal badan ayaa haystay arrintaasi waa marka arrinta aan u jeedo waalidiinta Soomaaliyeed ilmahaada haddii aadan la sheekaysanin oo aadan ogaanin waxa maskaxdooda ka guuxaya oo aadan ogaanin waxa ay jecel yihiin oo aadan ogaanin waxyaabaha dhibaya iskuulka maadooyinka dhibaya oo ku adag oo in laga caawiyo ay u baahan yihiin
waxaad ogaataa in caawinaadaas meel kale ay ka raadsanayaan. mobile ayuu ilmihii haystaa kaba soo qaad, iskuul ayuu ka yimid, buugagti ayuu meel dhigay, cunto ayaa siisay, qolkiisoo galay. muxuu samaynayaa? ilmaha qolkooda gal, ka warhay, la sheekayso. sanadkii hore waxaa dhacday in gobol ka mid a gobollada dalka Mareykanka wiil hooyo iyo aabba ayaa hal wiil ayay ilmo ka haysteen. ilmahooda Snapchat ayuu aad u isticmaali jiray. Snapchat-kii ayuu dad xun kala saaxiibay, darooga ayaa laga iibiyey, guriga ayaa loogu keenay, qolkiisa asoo ku jiro cunay, qolkiisa ayuu ku dhex dhintay, asoo meedah ayay waalidiintiisa arkeen ilmihii oo meedah oo qolkii dhex yaalla. qofna uma soo gelin, qofna uma imaan. xaggee looga iibiyey? daroogadaas internetka looga iibiyey, waa uu cunay, qolkiisii ku dhex dhintay. hadda waxay wadaan waalidiintaas olole caruurta ah in lala socdo barahooda bulshada. Snapchat-ka ama iraade Instagram-ka hadda waxay sheegeen sanadka socda inay soo saari doonaan qaab ay waalidiintu kula socon karaan isticmaalka caruurtooda ay isticmaalayaan Instagram-ka. marka haddii adigu aadan saaxiib la noqon ilmihii, hooyadii ama aroos iska aado ama shaqo iska aado amaba daycare iska aado, aabihiina taxi ama Uber ama taraag uu ceeriyo, ilmihiina guriga ay iska joogaan oo aan la ogeyn waxa ay samaynayaan oo aadan ka warqabin, ogow haddii aadan saaxiib la noqon qof kale ayay saaxiib la noqonayaan. qofkaasina qof xun ayuu noqon karaa, qof fiican ayuu noqon karaa. dadkan aan waddanka la degannahay inta badan maxay caruurta vacation ugu wadayaan, maxay caruurta usoo ciyaarsiinayaan? ilmaha maskaxdooda ayaa ilmaha inaad vacation wado amaba waxyaabaha ay jecel yihiin aad u gado amaba aad vacation geyso amaba meel ay ku ciyaaraan oo ay jecel yihiin aad geyso, ilmaha maskaxdooda ayaa arrintaas wax ka geysanaysa. annaga caruurta cuntaan siinaa, iskuulaan u dirnaa, guriga un baan ku haynaa. maya, arrintaas maskaxda caruurta waxbay ku yeelanaysaa. waalidiintan waxaad ogaataan in haddii ilmahaadu uu dhib iskuulka ka geysto inay saameyn kugu yeelanaysa. arrintaasi ogow. sida waalidiintan hadda wiilkan Michigan 4 arday ku dilay. annaga Soomaalida qori inta badan guryaha nooma yeelan, laakiin qori waa la heli karaa, ilmuhu waa u gadan karaa, qof kale ayuu ka qaadan karaa. haddii ilmahaada calaamado aad ku aragto oo waxyaabahaas inuu wax sameyn raba ah, waxaa qasab ah inaad iskuulka ku wargeliso, booliska aad ku wargeliso. haddaad qarsato inay saameyn kugu yeelanayso ogow. haddii marka adigu aad saaxiib la noqon wayso, ogow ilmahaadu saaxiib kale ayuu yeelanaya. haddaad la sheekaysan wayso, ogow qof kale ayuu la sheekaysanaya. qofkaasina qof xunna waa noqon karaa, qof wanaagsanna waa noqon karaa. marka gabadha aan dib ugu soo laabto 14 jirka oo Soomaalida ah oo magaalada Florence gobolka Kentucky iskuulka ka dhiganaysay, waxyaabaha ay qortay ayaan rabaa waraaqda ay ku qortay. waraaqdan halkan ayaa idin soo saaraya in aad qoraalkaasi ayaan idin sheego. waxyaabaha ay qortay waxaa ka mid ahaa gabadhan waxay tiri adinka ayaa sabab u ah sababta aniga walwalkan uu iigu abuuran yahay. you are the reason I have stress. ayaa ka mid ah waxyaabaha ay qortay. waxyaabaha ay qortay waxaa ka mid ahaa waa nacbahay galaaskan iyo qof kasta oo gudihiisa ku jira, waa baahanahay ayaa ka mid ahayd. English ayay ku qortay, marka waa Soomaaliyeynaya. waxaan rabaa madaxiina inaan jaro. waxay tiri qofna kama fikirayo gabdhaha. waxaan ku dhaaranayaa ayay tiri inaan iskuulkan aan qarxin doono. waxyaabaha ay qortay waraaqda ay ku qortay ka mid yihiin. waxaa ka mid ah sidoo kale iskuulkan waa micno daro. waxyaabaha ay gabadhu qortay ayay ka mid yihiin. waxaa sidoo kale ka mid ah qof kasta waa uu qurux daran yahay. help me ayaa ku jirtay, please ay leedahay, weliba ee caawiya fadlan ayaa ku jirtay. waxyaabaha kale oo ka mid ah waxaa ka mid ah ay qortay qof kasta isoo anooyin, qof kasta waxaa waaye waa qof carab badan, qof kasta isoo anooyin ay leedahay. marka waxay leedahay adinka xitaa madaxa ayaad iga wareeriseen, madaxa ayaad xanuujiseen. marka waxyaabo badan ayaa ku qornaa, intaas ayaan ka soo qaaday. marka gabadhan sida ka muuqata walwal iyo stress badan ayaa ka muuqda. waalidiinteed ma ka warhayeen, ma la sheekaysteen, wax ma weydiiyeen. gabadhan markii la arkay waraaqdaas ay qortay waa la qabtay, booliska loo yeeray, waa la xiray. hooyadeeda gurigii loogu yimid, hooyadeeda la yiri kaale gabadhaada iskuulkii qarxinaysa. maamadii way qalqashay, way carartay, waraaqdii la tusay. wax weyn maamada waraaqda ma aysan la noqon, laakiin arrintan waa wax weyn. gabadhan hadda waxaa lagu soo eedeeyey fal heerkiisu yahay fal argagixiso oo heerkiisu yahay midka labaad ayaa lagu soo eedeeyey. waa la xiray. hooyada 4 habeen ayay ka maqnayd. juvenile ayaa la geeyay meesha ilmaha da'da yar lagu xiro, xabsi lama geynin. hadda damaanad ayaa lagu soo daayay, qareen ayay qabsatay, maxkamad ayaa la soo taagaya horaanta bisha soo socota gabadhan. iskuulkiina waa laga joojiyay. guddiga waxbarashada iskuulkana waxay la kulmaysaa maamada 4 bisha sida ay sheegtaan filaya. 5 January mise 6 January-na maxkamad ayay u ballansan tahay gabadha in maxkamad la soo taago. hooyadan Soomaaliyeed caawinaad ayuu u baahan tahay. wareysir ayaan rabay inaan ka qaado, laakiin waa ay ka gaabsatay. marka sababta igu kaliftay in aan waalidiinta Soomaaliyeed marka aan digniintan iyo waanadan u jeediyo, arrintan ayaa ka koow ah. waddanka xaaladiisu hadda ma wanaagsana, siiba iskuulada.
sababta hadda gabadhan maamadu waraaqdan wax weyn ma aysan ka dhigan, laakiin waa arrin weyn macallimiintu. waayo wiilkan oo 15 jirka ah oo 4 arday ku dilay bishii hore dhamaadkii gobolka Michigan, waraaq ayuu qoray dad uu toogtay dhiig ka socdo, waxyaabahaas ayaa lagu arkay isagoo online ka risaas ka raadinayay. arrintaasi digniintaasi iyadoo la arkay isla maalin talaada ay ahayd oo markuu sawirkaasi sameynayo ayuu falkiina isla markii fuliyay. marka macallimiinta iyo maamulka iskuuladu arrintaasi ay maskaxda ku hayaan. marka ilmahaadu waxa ay qorayaan inaad la socoto, la sheekaysato markay iskuul ka yimaadaan. mararka qaar waxay jecel yihiin inaad u gado, mararka qaar meel ay jecel yihiin inaad geyso. haddii aadan intaasi u sameynin, ogow meel kale ayay ka raadsanayaan. meel xun ayay noqon kartaa, saaxiib xun ayuu noqon karaa qofka ay helayaan, saaxiib wanaagsanna waa noqon karaa. marka siiba teenagerska iskuullada sare dhiganaya waa in waalidiintu ay si wanaagsan ula socdaan. waddankan xaaladiisu aad uma wanaagsana. arrintan hadda isdilka ah Soomaalideena kuma badna, laakiin waa ay dhici kartaa. number waxaa jira 24 saac la wici karo oo qofku haddii uu rabo inuu islaamo uu damacsan yahay halkaasi talooyin laga siinayo ama laga waaninayo. anaga Soomaalideena kuma badna, laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego numberkaasi waa 1-800-273-8255. waxaa la yiraahdaa National Suicide Prevention Hotline. waa number caalami ah oo maba number guud ahaan wadanka qof kasta oo wici karo 24 saacna la wici karo oo qofkii raba inuu isdilo ama ba sidoo kale damacsan oo ka shakiso waad wici kartaa numberkaasi si talooyin loo siiyo qofkaasi. dad fara badan ayaa laga badbaadiyay inay isdilaan markii numberkaasi xiriir la sameeyay. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. arrintaas ayaan rabay in waalidiinta Soomaaliyeed aan digniintaas iyo waanadaasi siiyo. arrintan waa arrin jirta, yaan la fududeysan. ilmahaada ogow waxa uu sameynayo, la sheekayso, saaxiib la noqo. haddii kale waxaa laga yaabaa dhibaato uu geystay in adiga ay saameyn kugu yeelato oo adiga nafsad ahaantaadu aad xabsi gasho, isaguna uu xabsi galo. aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada. waa idinka mahad celinaya. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkina Cilmi Waaro idin la sidaayo.